kulan wacan saaxiib ila halkani waa Caasim Media ku soo dhawaada qaybtii afraad ee qisadii taxanaha inoo aheeday gacalka maxaa isku diray balse daawada intaan ugu gudgalin qisada haddii aad channel ku cusub tahay subscribe taabo furo gambareelka si aad u hesho muuqaaladeena ha ilowin inaad muuqaalkan ilaag dhahdo Safa ayaa ku tiri saaxiibteeda qof qurux badan ayaa tahay waxaani waa nin rag ah oo damac badan sameey waxyaabo aad ku soo jiidatid Suudi waad ka qurux badan tahay waana ka hanti badan tahay Salmaan ku soo jiido labis qurux badan hadiyado iyo ereyo macaan waad arki doontaa asagoo ku soo raadinayo Samiir ayaa ka heshay fikradda saaxiibteed Safa waxayna go'aansatay in ay Salmaan kala wareegto Suudi waa gabar degan oo daacad ah laakiin quruxda Samiira ma lahan mana awoodo in ay u labisato sida Samiira mana awoodo in ay hadiyado u iibiso jaceelkeeda balse waxay awoodaa in ay ku soo jiidato akhlaaq dabeecad deganaan iyo daacadnimadeeda Salmaan iyo Suudi sidii ay wada socdeen oo ay u xiriirayeen mar walba jaceelkoodana maalinba maalinta ka dambaysa wuxuu ahaa mid sii kordhaya halka Safa iyo Samiira ay qorsheynayeen sidii ay u kala geyn lahaayeen lamaanahani isjecel Samiira ma laga yaabaa in ay quruxdeeda iyo hantideeda ay ku soo jiidato Salmaan maalin maalmaha ka mid ah ayay Samiira u soo iibisay hadiyad qurux badan oo kartoon ku jirto waa saacad faraanti oo kiyaali iyo barfuun caraf badan oo qaali ah iyadana waxay u labisatay si qurux badan oo soo jiidasho leh waxay wacday Salmaan waxayna ka codsatay inay hal mar la kulanto si ay wax muhiim ah ugu sheegto kadib ayuu ka ogolaaday waxayna ku ballameen meel qurux badan oo xeeb ah waqti galab ah oo jawiga qurux badan yahay Samiira ayaa ishii aragto marnaba aysan ka jeesanin quruxdeeda iyo qaabka ay u labisneed runtii nin kasta oo rag ah si walba uu qalbi adag yahay way soo jiidanaysay waa markii ugu horeysay Salmaan oo damac ka galo Samiira markay kulmeen oo ay is salaameen kadib ayay meel fariisteen kadib ayuu Salmaan wuxuu ka bixi waayay ammaan iyo inuu indhaha ka qaadi waayo Samiira isaga oo dhowr jeer ku soo celceliyay waaw maanta aad ayaad u nuuraysaa kadib waxay guddoonsiisay hadiyadii ay ugu tala gashay wuuna ka guddoomay wuuna ugu mahad celiyay kadib waxay bilowday inay ku soo jiidato qurux hadal macaan iyo hadiyado qurux badan kadib ayay ka codsatay inuu fursad siiyo waxayna ku tiri Salmaan aniga si dhab ah ayaan ku jeclahay waxaan rabaa inaad fursad isiisid si aan kuu tuso jaceelka aan kuu qabo inta uu la eg yahay ayagoo isla fadhiya ayaa waxaa soo dhacay moobilka Salmaan mise waa Suudi balse wuu ku dhageystay ma uusan ka qabanin waa markii ugu horeysay ee uu telefoon ku dhageysto Suudi laakiin Salmaan ma ogeyn in Safa ay u soo sheegtay Suudi in Salmaan iyo Samiira ay balansanaayeen oo uu qayaanayo Salmaan danna uusan ka lahayn Safa ayaa sidaasi sameysay oo soo waday Suudi waxa ayna kala socdeen meel dheer wax walba dhacayay Samiira iyo Salmaanna way wada qoslayeen wayna isugu sheekada Suudi way soo wacdaa Salmaan isagana teelku uu ku dhageystaa markii dambena wuuba iska damiyay teelka oo dhan sheeka dheer kadib Samiira iyo Salmaan waa isa soo raaceen Suudi oo niyad jabsan oo la yaaban isbedelka Salmaan ku imaaday iyo khiyaanada Samiira ayaa soo baxday oo xaafadeedii ayay iska soo aaday laakiin Suudi ma ogeyn in xataa Safa ay khiyaanaysay oo qorshahani ay isla ogaayeen Samiira iyo Safa si ay u kala geeyaan Suudi iyo Salmaan saacad kadib ayuu Salmaan soo wacay Suudi way ka qabatay laakiin nasiib xumo niyada ayuu ka sii dilay waayo been ayuu u sii sheegay isagoo hadalku macaaneynaya ayuu ku yiri xabiibtii waan mashquulsanaa iga raali noqo shaqo ayaan ku jiri iyo waxyaabo la mid ah balse Suudi way aragtay wax walba oo dhacay iyo Samiira asaga inay isla joogeen niyada ayayna ka sii jabtay Safa iyo Samiira qorshahoodii waa u hagaagay lamaanihii dhexdoodana khilaaf ayaa soo dhaxgalay iyo niyad jab waa fursadii Samiira ma ka faa'iideysan doontaa Samiira fursadani mise way ku guul dareysan doontaa Suudi ayaa ku xumaatay in Salmaan uu been u sheego iyadoo ogeedi in uu Samiira la joogo haddana ku yiri shaqo ayaan ku mashquulay laakiin waxay ahayd gabar caqli badan oo degan qofna ma aysan dareensiinin in ay arintaasi ka niyad jabtay iyo in ay wax walba ogaatay sidii caadiga ahayd ee lagu yaqaanay ayay ula dhaqmaysay Samiira iyo Salmaan halka uu Salmaan isku waday labada gabdhood Samiira fursad ayuu sii jiray marka ay soo xiriiriso ama qadka ay kala soo hadasho sidoo kale Suudina waqti ayuu siin jiray balse Suudi waxaad moodaa in ay dib u gurasho bilowday inuu isaga soo waca ama uu soo xiriiriyo mooye iyada ma dareensin jirin inay u baahan tahay akhlaaq iyo deganaan ayaa la isdheer yahay Samiira iyada ayaa dan laheed iyada ayaa rabtay in ay Salmaan kasbato sidaas darteed waqti walba iyada ayaa daba carari jirtay oo soo wici jirtay laakiin Suudi waxay ahayd qof si maskaxaysan oo degan wax walba u xalisa Salmaan ayaa dareemay Suudi inay isbedesho oo ay dib u gurasho bilowday isagana wuxuu bilaabay in uu fikiro oo isweydiiyo maxaa ku dhacay Suudi Salmaan ayaa wacay Suudi balse way ku dhageysatay wuu yaabay mar kale iyo mar saddexaad ayuu wacay laakiin nasiib xumo ma aysan ka qaban Salmaan shalayba gabadhani wuxuu ku jeclaaday waxay ahayd asluubta deganaanta iyo dabeecadda kaligiis ayaa bilaabay inuu isbarbar dhigo Samiira iyo Suudi maskaxdiisa ayuuna la sheekaystay wuxuuna ogaaday inay
marnaba isku dhaweyn isla markiiba wuxuu go'aan ku gaaray in uu soo raadiyo Sucdi wuxuu soo aaday xaafadeedii guriga markuu yimid ayuu albaabka garaacay waa laga furay kadib ayuu yiri Sucdi ayaan u baahnaa way u soo baxday wuxuuna yiri maxaa dhacay hotelka iga qaban weysay waxay ku tiri waan jiifay si lama filaan ayaadna iigu timid gurigana ma ii hagaagsano sidaas darteed iga raali noqo gudaha ma u soo gudbi kartid albaabka ayayna ku celisay waxay intaasi u sameynaysaa waa ku talagal waayo waxay rabtaa inuu ogaado qiimaheeda maxaa yeelay qurux iyo lacag ayuu ka raacay quruxna ma aha tan wajiga iyo jirka qurux waa qalbiga iyo dabeecad wanaag Salmaan in albaabka lagu celiyay markuu arkay ayuu ku yiri okay hadda waan sii baxa laakiin waxaan rabaa in aan galabta kulano oo aan kula hadlo asagoo taagan ayay albaabka ka xiratay gudaha ayayna ku laabatay Salmaan wuu la yaabay qaabka uu la dhaqmayso Sucdi markuu arkay arimahani dhacay ayuu wuxuu bilaabay inuu kaligiis isla sheekaysto talow arintii adiga iyo Samiira may ogaatay ileen gabdhaha waa saaxiibo armay isku sheegeen fikir ayaa la soo dirsay Salmaan Sucdina wax walba ku talagal ayay u sameynaysay iyada oo dareensiinaysay inaysan ahayn qof si fudud lagu heli karo aqli ayay laheeday wax walbana si deganaan ayay u sameyn jirtay waxaa la gaaray balantii waxaana kulmay Salmaan iyo Sucdi meel degan oo jawigeedu macaan yahay ayayna wada fariisteen Salmaan ayaa hadalka bilaabay oo yiri Sucdi maxaa kugu dhacay baryahani sidaan kugu ogaa waa iska bedeshay markaas ayay ku tiri adigaba sidaan kugu ogaa ma tahay wuxuu ku yiri maxaad aragtay oo isku bedelay waxay ku tiri hore been maad u aqoon hadda se been ayaad baratay wuu isku naxay Salmaan wuxuuna ku yiri maxaan been kugu sheegay markaasay ku tiri waan ku soo wacay aanu ku jeedo wax walba aad sameynaysid teelkan waad igu dhageysatay markaan kugu soo celiyeen waad dansatay habeenkii markii aad soo wacdayna been ayaad ii sheegtay Salmaan hadal wuu ku soo bixi waayay inuu madax xoqdo ayuuna bilaabay markuu cabaar aamusna ayay ka istaagtay meesha markaasi ayuu gacanta ka qabtay wuxuuna ku yiri iga raali noqo waan ku baryaa mar dambe ma dhacayso ha igu ciqaabin qaladkii ugu horeeyay ee aan galo waxaana ka balqaadaa in aysan mar dambe dhicin wax walbana ana ku sharixi doono ee hal fursad isii markaasi ayay ku tiri niyada ayaad iga dishay niyad jabtayna lama soo celin karo waxaan kugu ogahay qoftii shalay aad iga raacday ee ku bedeshay qofta darteed beenta u baratay aniga iska kay ilow isaga oo baryotamaya ayayna ka soo tagtay Salmaan waagi ayaa ku baryay wuxuuna ogaaday qiimaheeda wuxuu ogaaday in ay tahay qof qaali ah Sucdi way jecleed Salmaan wayna jeceshahay laakiin kaliya waxay ka ahayd canaan wayna ogeed inuu mar labaad iyo mar saddexaad uu soo raadinayo waxayna diyaar u ahayd in ay fursad siiso balse waxay islaheed darsi ha ka qaato canaantan Salmaan ayaa isku dayay in uu ogaado maalintii uu la kulmayay Samiira Sucdi sida ay meesha ku timid iyo wixii keenay baaritaan dheer iyo waraysi uu la yeeshay gabdhaha Samiira iyo Safaa wuxuu ogaaday inay ahaayeen qorshe ay ugu talagaleen in ay ku kala geeyaan isaga iyo Sucdi isla markiina Salmaan wuxuu go'aansaday in uu dib u soo ceshto jaceylkiisa inta waxay nooga qaybtii afaraad la soo qaybtii xigta doo rabbi dhaho daawada inuun inaad muuqaalka laag dhahdo haddii aad channelka cusub tahay nagu soo biir oo subscribe taabo furo gambaleelka si aad u hesho muuqaaladeena isla markaa aynu soo gelino tan intaan ku kulmayna qaybtii xigta nabadgelyo